السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإدين سلامة لمان أخيارتا شرفت مدن وحانا سلامة أخيارتي نوسو زايدي كإماتي جانالكا امشي برودكشن وما هسنتين إن شاء الله وحاسل قادن دونا وقت في عن وحاني ليه لهاي إقرا لي هذا وإدين قصود داهي إن مدة إذا مقناي جانالكا واستكسناي وحير بروبلنا يوسو زيادي ساس دراديسا wax u soo duubi waaye channelka u soo dhigi waaye marka caawa waxaa idin hayaa surprise kulul maanu isweydiinaysin meeshaan banaan muxuu banaan ugu dhigay mise yaa soo fadhiisan lahay waxaan soo dhaweynaynaa maanta my big pro nakhlaan maanta tartan la qaadan doona tartanka oo ah asu wuxuu yiri af Soomaali ma taqaanid anna waxaan adiga ma taqaanid af Soomaali sadaradiisa fikradan keenay ina ani asiga wada tartano aniga su'aal weydiiyo asiga macnaha mas'uul jeedada su'aalka iga jawaabo marka hore waxaan dhihi lahay halagu saliyo nabiga sallallahu wa salaamu alayhi walaalkayga nakhlaan soo dhawo waa idin salaamay akhyaarta السلام عليكم معاكم حق وعليكم السلام بس وحي وددكان ما انت اقسم بالله العظيم معان تاغنا اف صومالي وحي تبرتي iyo وحي soo bartay inta inaan soo safar لكن نخلان aniga ku leeyahay hadaba intii videogan shabaabta iyo dhalinyarta arkin hadaba ma faantay tartiib ka kac meesha waa ka baxda tartanka wallahi inaan ka baxin af Soomaali lama aho ama Chinese ku jira meesha Soomaali leeyahay keen ani ma aqaani ma baranin ma maqlin ani ka yeeli ma hadaba maya waxay sheegtid waa keenaya okay hadalkii aan ugu badanin aan toos u gudubno tartanka walaalkiina aan la qaadanayno nakhlaan su'aalka koowaad waxa waaye su'aal koowaad isoo baas okay ready mata diyaar mata nakhlaan bismillah wiligay ready leh okay su'aal koowaad aan weydiinay nakhlaan waxa waaye macnaha xoog hayeen dhamaan akhyaartana daawanayso boqolkiiba boqol waa yaqaanin macnaha xoog hayeen la yiraahdo af Soomaali qofkii yaqaan uu yaqaan macnaha xoog hayeen nakhlaan waxa laga rabaa jawaabta xoog hayeen xoog hayeen qofkii xoog haysta waay waa ka anako tartanka bilaawan waa ka waxa bilawday xoog hayeen waay xoog hayeen qofkii xoog hay hadda xoog firi boorsa wadata yani xoog hayeen xooga wadata xoog hayeen le waay maha xoog hayeen iyo xoog hayeenta waxa waaye ma aha adiga sa u tarjumaanayso sa u fasirnayso hadda xoog hayeen xoog heesta ma aha ma ahaniyo marka adiga fooda iyo wada waa idin yiraahday aniga nakhlaan maanta wuu dhiiqan doona wallahi sug xoog hayeen miya aniga akhyaarta daawanayso waxaan balan iga qaadan nakhlaan maanta asoo inta ku dhiiqday inuu ka baxo tartan oo ila qaaday shay walow مش عارف ايش wax jirin lahay keenin maaha akhyaarta qofka kelmadeeda leeyahay kelmad Soomaaliyeed maaha ay dadka leeyihiin waa kelmad Soomaaliyeed hoos u dhacan comment-ka nagu soo qoraan ra'yigiina iyo ay qofkii kelmadda macnaheeda fahmay aniga ma saxan misna khalaana saxan hadda ma garatay mise waa ku sheega okay xoog hayeen madaxweynaha camal wayno no may okay xoog hayeen qofkii sultada haya xoog qofkii haya marka videogan dheereenin nakhlaan dhibic koowaad ka qaadana xoog hayeen waxa laga wadaa secretary qofkii yaqaan afka Carabiga secretary واكا ويوغسلا وحمليا حوق هايين مش عارف ايش وحسن سكرتير لميا نخلانو دبعان كا قاتي وركان بدنين حوق هايين نينكي يقانا كومنت ددكو انو سو قري دونان حوق هايين كومنت سو قرا اورت سكرتير ما بين نقون اني اسيغا يا سحن سكرتير اوكي waxaan u gudbeena waa dhiiqday secretary okay waxaan u gudbi doonaa ilaa afkeeban kare su'aalka labaad aan weydiin doono nakhlaan اوكي سؤالك اللبات سوقم سكرتير كلها هاي اوكي سؤالك اللبات aan weydiinay nakhlaan waxa waaye dad Soomaali waa weyntahay qof walba macno u yaqaana laakiin aniga gaar ahaan aan macnaha u bartay macnahan waxaan aqaanaa macnaheeda macnaha dad kale waxa laga yaabaa inay fikrad kale mise wax kale oo qaataan nakhlaan oo kale wax kale dhahay markii lagu soo qoray ma aan fikrad kale wada kelmad oo caalanka dhanka saas ii sheeg okay ani waxaan ku sheegay kelmad oo Soomaalida dhan yaqaanin okay hay okay waxaan leeyahay su'aalka koowaad labaad waxa waaye Landere
لا اله الا الله محمد. كت حر هقلنا ان فيري مال امك. سؤال كلكل ايش waa ka saa'idina naqlaan af Soomaali meesha kuma hay wuxuu hay afar taxabo ما كلمة فيري هذيك كاميرا خفيف مياه والله عيب هاي qofku u jeedo kelmadda inay ceeb tahay oo naqlaan raacsan hoosana uu soo qoro qofkii anay taageersanay anay raacsan ay kelmad Soomaaliyeed tahay kelmad la yiraahdo landheere kulligeen waa naqaan maaha ها كاس مع سوق لي marka naqlaan wuu ku dhiiqday naqlaan hadda jawaabta su'aalka minoo heesaa mise jawaabta hadaan dhaa horta dad badan aan naxayaan anigana afkayma kasoo baxay waxaan laakiin adiga maadaama wasaq aad tahay waxaan kaa soo baxay ma iga soo baxay eesh hada maal umag firi marka saan boqolkiiba boqol aan fikradda aan ka qaatay inay saas kusoo dhici doonto waa ogaay dad badanna videogan haddii daawadaan waxay leeyihiin maxay ugula dabacsanaayeen aflagaado iyo wax laakiin aflagaado maaha landheere waxaa loo yaqaanaa qof oo madax ah mise qof xoog badan mise qof qabiil weyn ka dhashtay awal waay taas xoog haayeen waay xoog haayeen secretary waay tan labaad hadda aan ku leeyahay landheere waxaa waay qabiil weyn u ka dhashtay qofkan waa landheere ما والله عادتنا أمالنا أنا قلت قف قلت لا ما جرت حتى قبيل وين أنت كدشت قلت ما قاعد يسوي رننا ما فهمتين طيب أوكي نخلنا هذا الكرة ويلنا قفك أو قبيل وين وكدش قف كان وقف هاي أو وين لنا في صومالي نو شك ما قاعد حوج وباني حوج هايين وادي كرتا ننكاس حوج هايين لكن نن أو قبيل كدشت أو صاص وين ما ده اوكي نخلنا اكو ديقدي سايدن شيء لبا ديبعان ka wata waa inoo socda tartanka ani nakhlaan qofka in kala saari doono waa shacabka Soomaaliyeed daawanayaan comment inuu soo qoro yaa saxan ani nakhlaan okay tis daxad gal laakiin wax ceeba keenin okay maadaama dadka dhan ay leeyihiin sheewal fikrada qalad u keenayo af Soomaaliga hadda fikrad oo dadka Soomaaliyeed dhan yaqaaniin su'aalan ka soo dhaxsaara su'aalku wuxuu yahay nakhlaano waxaan ku amaahday aaway nakhlaano waxaan ku amaahday aaway waxaan ku dhiibay aaway waa akhiran waa kaam waa idin dhahe nakhlaan wuxuu yaqaanaa af Soomaaliga sax wayno ha waxaan ku amaahday waxaan ku dhiibay wayno Allahu akbar nakhlaano waa sax lama af Soomaali sax marka hadlays waa ka sax laakiin wax jinni keenay ma ii soconays ma fahmtay هذا كلمة صحيح وايتن اوكي نخلان garoonka uu soo laabtay laba dhibac tuhal waani asiga waxaan u gudbeena su'aalka afraadne kuma adkeenay su'aal waxa way dadka dhan yaqaaniin su'aalkan wuxuu yahay nakhlaan xalato waa ku qarway ama xalato cameramanka taaha waa ku qarway وكا حناقي وكو حمي نو وليت في صومالي وكهدلويا وكونو ليه وكو قروي كاني وكو قروي واركا دا حناقيس اوكي وكو قروي هدا ايغو قرود maxaa igu qarowd اوكي maxaa igu qarowd ku jirtaa adi sheeka ma wada qaadanayno su'aalan ku weydiino jawaabteedan ka اوكي waa dareema no aniga hadalkaada ka dareema waa ku qarowd عادي ما اوغشي هذا كو قرود غدود هذا كو قرود ما اوغشي اوغلا عادي دب مله يعني عايتم اوكي واخ كلا وايسك او كو قرود ما والله شيك هوزو اوكي نخلان واسديبي هل دبع وهستا ان دبعده saddexaad aan ka qaadan doono waa ku qarway waxa way waa ku riyooday ama ha waa iga dhaxqeelisoo kale aha rio man's dream يعني waa ku riyooday maxaa laakiin qarwo waa ku riyooday bajirtaaba يا استعمال هذا نظام حواي رير بريا استخدامان Soomaaliland استخدامان لكن adiga kelmadaha aad taqaanid aan hadda dan ku weydiyo asal markii jawaabeesto waxa waaye lahjada reer Muqdisho oo lagu yaqaan reer Xamarka asaasigu wayno laakiin qurquriyood iyo waxaan i keenaysad adiga duura keenusa hadda dan weydiyo unsim iyo shidido wala cili bakhur way qana soo umu way qana sil markii ka soo jawaaba ku dhe marka dhibac ma soo qaadada beenta ma qaadada
to hal Okay, waaye saddex iyo hal. waxaan usoo laabanay su-aalkii shanaad aan weydiin doono walaalkeena nakhlaan Okay. diyaar brother. Okay. wax macquul keen. okay waxaan idin xasuusinaa dhibcaha kaliya aniga waxaan leeyahay 3 nakhlaanna wuxuu leeyahay dhibic Okay. su-aalka aan weydiin doono waxaa waaye nakhlaan waa turunturooday ha nakhlaan wuu turunturooday mise nakhlaan waa turunturooday saarti u qaado okay wuurey nakhlaan waarey wuu guuleystay dhibaatada aan nakhlaan isku wada qabnaa ani asiga soomaaliya ku hadlaya nakhlaan waa guuleystay nakhlaan yani af soomaaliya ugu soo jawaaba fa aniga seen ku weydiina af soomaali su-aal af soomaali aba isla macna markii kale leedahay no no okay waa ish oo ku guriyooday macna tii hore eed ku riyooday tan waxaa waay nakhlaan wuu turunturooday nakhlaan wuu turunturooday nakhlaan waa ka dhamaatay waay ha oo burburi kan ka baa turunturooday af Soomaaliga horta wallahi dhib waay hadii turunturooda ku jirta iyo alaab oo dheer iyo wax jinni ku jira wallahi af Soomaali wax ma ka haysti laakiin waa turunturooday tan macquul ma ah weligeena meel ma ku maqlin waa turunturooday waa ku sheegay waay saa idin sheegay waxaa waay wuxuu noqday door biyo ku dhacday nakhlaankii balaa iska dhigay aniga af Soomaaliga buug qaamuuska gurigan ku haystaa waa dhigtaa wuxuu ani iga dhadhacsiiyay qaamuuska Soomaaliga oo la qoray ma fahanti inuu firaashka hoostiisa ugu jiro barkinta hoosteed hadda waa ka turunturooday waan qoraa Soomaali waan ku hadlaa qoraalna waa bartay turunturoodan inta ay keentay dadaa jira xataa oo hadda commentiga ku jiraan oo video fiirsanayaan turunturooda ma ka saayaan turunturooda hadaa ka seeyso toos ku soo qoraa hadaa ka seenina ma ka saayde turunturooda macquul ma af Soomaali ma noqon kartaa maya ani waxaan ku akiidinaa 100% inay Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed yaqaaniin turunturooda ilaa waa kelmad Soomaaliyeed laakiin ina shacabka adiga ah xil saarta adhaada ininka ka mas'uulay waa qalad aniga ma aqaani ibara ceeb ma waa turunturooda okay ibar turunturooda okay macquul miya wax macquul miya isheeg ma turunturooda maxaa waay waa turunturooday macnaha ee Soomaaliyeed macnaha qaar waxay yiraahdaan waa kufay haye wuu kufay nakhlaan afgambo u dhaay afgambo ma turunturooda noqday wuu turunturooday nakhlaan wuu kufay camal waaye inna lillahi wa inna ilayhi ardib jeceshina Soomaali waan kufiya wadatiine turunturooda maxaa u isticmaashiin okay nakhlaan waxaan ka wadanaa 4 dhibic to hal marka waxaan weydiinaynaa asiga suu dhibic 2 dhibic u helo wax yar aniga ciyaarta u dejinaya nakhlaan waxaan tusinayaa awoodiis kaliya inuu meesha wax ku heen marka caawa waa keensada meesha waa ku leestay insha Allah halkala ku dar maya aniga waa ku wadaa mid ku dibcinaa wax yar marka nakhlaan su'aalka lixaad oo gudbina su'aalka lixaad waxa waaye nakhlaan kelmadda macnaheedan ka raba oo la dhahayo hablo Allah anaabu ku heesibay taas hablaheena Soomaali hablo Allah aabo hablo al-anisa as-sayyida al-amira waay u jeclay hablaha Soomaaliyeed ما شاء الله ما كفتمونا فيري معلم ملنا شحاري أنا وحاس مكجري هبلا صومالك مدحنا وسارينهين نمنك صومالك مدحنا وسارين ولا لكن ولا لياشين واي نخلان وحوض أشياء كذا للده صومالي وتقانا هالصوت عيارت مركب أسوسين عيارت قلبكم ما قبلنا أصوات لا قلب مركب دب أوكي هذا أنا ما أقدر عن لا نخلان وحوض دبع لبا وهله أنا جنا وحان هله أفر marka aniga asiga waxaa noo dhaxeeya dhibacyo laba dhibac noo dhaxeeya maadaama aad sheekada saas ku bilowday aniga horta weligay khasaaro waan nacbanahay meeshiiba ku khasaara waa sii qoda ilaa kareey hadda maadaama adiga inta martii igu qaaday oo channelkaada igu dhex khasaarisay channelkayga iga suga aniga maanta waxaan u keenay nakhlaan jacayl aan u qabo faaniskiisa MC Production ka imaadeen inaan tusiyo nakhlaan awoodda uu ku leeyahay afka Soomaaliyeed channelkayga iga suga faansigiisa ha imaadaan waa arkaysiin waa martiqaada dhulkan dhaxgina asaga naftirkiisa af Soomaalian le dhulku dhaxgina okay Soomaaliya waa soo diyaarsatano anina waa soo diyaarsan karaa
soomaali waxay tiri aragaane marka waxaan leeyahay akhyaarta aniga igu jiraan ha tagaan MC Production tanki uu asiga igu soo martiqaadayna hala daawado marka dambe su-aasha u dambeeya aan weydiin doono waxaa waay Nakhlaan oo igu codsadeen fansigiisa oo fansiga Nakhlaan iga dalbadeen waxaa waay inaan weydiiyo maadaama aan dhinacayga u joogo komtiyaalan ku akhriyay Nakhlaan muxuu inoo nacay Nakhlaan waxaan ku weydiinaynaa maxaa u nacday fansigaaga MC Production channelkaaga ugu dhawaan 3 bilood 2 bilood waa istaagsan tahay video kuma soo shubtid marka waxaan rabaa inaan u sheegto fansigaaga sababta ugu daahday mise channelka u istaajisay okay horta sababta u nacday ma la dhaha taas because aniga manci fansigayga manci waan jeclahay iiga jecel sababta oo u daahday waa idhigi kartiin laakiin sababta oo u nacday ma idhigi kartiin because ma idan nacin weligeena ma idan nacay sababta aan u daahay maxaa waay shaqo oo culus oo weyn aan soo wadaa insha Allah hadda shaqada nusaan marona insha Allah aan soo dhameeno sababtii aan u daahay aa arki doontiin inay faadi ahaynin sabab oo calal faadi ma ahaynin shaqo weyn aan soo wadaa oo weligeeda qof Soomaali oo sameey shaqadan aniga soo wada ma bajirtaba soo shaqada soo wada iga suga shaqo oo the first Somali qof oo Soomaali uu ku sameey aan noqon doona insha Allah iga suga shaqadaasna hadda ma sheegi kari insha Allah nusamaruna markaan dhameeyo arkaysiin waa wada baashaalina channelkana ma ka tagay waa idin soo wada iga suga le waqti la u baahan tahay marka ii duceeyo ilaahay waafaqay idinkan ilaahay hadin waafaqay okay waa maqasheen sababaha Nakhlaan uu kaliftay inuu channelka wax yar uu waxyaabo video hal uu soo dhigan wuxuu idin dhahay aniga idin ma nacin ficlan qof walaalihiisa naci karo ma jiro waa iska mashquul badan yahay marka insha Allah soo wada ugu jiraa marka asaga xataa xoogaa mashquul u noqday sababta uu daahisaasi ahayd okay marka shaqadan soo socota naga suga okay waxaan mahad u celinaynaa walaalkeeni Taha cameramanka oo inoo anaka inoo wallahi dagadaashiisu taagan yahay Taha oo ku salaamnay marka khayr idin dhaafnay maca salaama fi amaan